بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta waxaanu ka hadli doonaa geedka la yiraahdo qajaarka oo ah geedaha macnaha vegetables-ka kuwooda ugu fiican oo de wadankana ku cusub iminkana macnaha dhaqaale fiican iyo de cilmi baaris badan oo lagu sameeyay ka bacdi dhaqaale fiican laga sameeyay waxaan wareysan doonaa mid kamid ah dhalinyarada cilmiga beeraha aad ku baratay barnaamijkaasna ku shaqeysa oo beertan halkan ka hirgeliyay marka waxaanu ninka la yiraahdaa ninka Mahad Saciid Maxamuud oo beertan ninka iskala ama milkiilaha beertan marka waxaan ka wareysan doonaa beertan qaabka ay u shaqeyso qajaarka qaabka uu shaqeeyo qaabka suuqa loo geeyo qaabka loo abuuro qaabka uu de life cycle-kiisa u dhamaysto marka intaas uu wareyskanagu uu daarnaan doona marka soo dhaw Mahad Saciid Maxamuud magacay waa Mahad Saciid Maxamuud oo kamid ah ardayda barata cilmiga beeraha oo ku nool magaalada Muqdisho waxaan ka baxay Jaamacadda University of Science and Technology oo aan ka bartay cilmiga beeraha waxa hadda aan kamid ahay dadka ama beeraleyda Soomaaliyeed ama aqoonyahanada Soomaaliyeed oo cilmiga barteen ku dabaqay oo wax ka soo oo isticmaalay inay dalka wax ka soo saaraan meesha hadda joogno waxa waa beerteedii oo ah beer green house waxaan ku beeran dalagga qajaarka oo ah dalag aad muhiim u ah oo qaybo badan oo muhiim ah u leeyahay haddii aan lahayd dhaqaalo iyo haddii aan lahaydba in laga helo minerals iyo waxyaabo kala duwan marka waa dhawa maasha Allah qolkiiba waa maasantahay Master Mahad introduction-ka aadna siisay iyo qaabka aad u bilowday wareysiga qajaarku waa geed nooca ah marka la fiiriyo oo de familku ka tirsan yahay qaabka oo de qolada uu ka tirsan yahay because geedu waa familo iyo kingdomyo boqortooyooyin marka waxaad noo sheegaysaa qajaarku boqortooyada uu ka tirsan yahay iyo familkiisa haddaan ka hadlo geedka qajaarka oo ama afka qalaad loo yaqaano cucumber oo geedka hadda noo beeran wuxuu ka mid yahay waa family loo yaqaano Cucurbitaceae ama si kala daw dhawo waxay isku family yihiin familiadan oo dhirtan saaqsaaqda sida oo ama xargaha tuurto oo ay ka mid yihiin bocorka iyo qaraha iyo marka uu ka mid yahay waxa way sheegay waan geed aad u faa'iido badan oo muhiim ah waa maasantahay Master Mahad waxaad noo sheegtaa faa'iidooyinka uu leeyahay geedkani maxaa kamid ah haddaan ka hadlo faa'iidooyinka uu leeyahay geedkan qajaarka oo waxa kamid ah wuxuu leeyahay waa faa'iido dhowr dhinac loo fiirinayo oo ay kamid tahay mid oo horta dhaqaale waa jirtaa faa'iido dhaqaale waa leeyahay iyo mid caafimaad marka midka caafimaadka waxa kamid ah geedkan waxa aad ugu badan oo 97% 96% la wuxuu ka kooban yahay waa biyo ka kooban yahay wuxuu ka qayb qaataa marka inuu dadka maaragtay inuu jirka biyo badan siiyo oo soo qofka dehydration ku dhicin sidoo kale geedka waxyaabo kale oo ka kooban yahay kamid ah waa minerals waxa faa'iidooyinku leeyahay waxa kamid ah in dadka u isticmaalaan faa'iidooyin fara badan oo kala duwan sida saladiska oo kale lagu darsado waxa dad cabitaan in loo shiito marka waxa geed faa'iidooyinkiisa aad fara badan yihiin dhinaca kale wuxuu leeyahay faa'iido dhaqaale waa leeyahay oo waxa waa adduunka hadda waxa ka jirta sida hadda la wada ogyahay waxa jira oo la dhaho cucumber millionaires ama loo yaqaano hadda qadka laga baar laga arkayo marka faa'iido dhaqaale waa leeyahay faa'iido caafimaad waa leeyahay inta marka waxa waa faa'iido u leeyahay waxaad noo sheegtaa imise nooc oo ama variety oo geedkan ka kooban yahay ayaa wadanka taala ama ay hadda Soomaaliya lagu beeraa haddaan ka hadlo noocyada kala duwan qajaarka ama sida kala variety kala duwan oo Soomaaliya hadda la isticmaalo sida common-ka oo wadanka hadda meelaha u badan loo isticmaalo kala waxa kamid ah koonfurtan waxa waa saddex variety oo kala duwan waxa jirta horta la tijaabiyay oo sida centerka jaamacadda oo kale lagu tijaabiyay oo meelo kale lagu tijaabiyay oo dad beeraley kale lagu tijaabiyay waxa waa qajaar oo loo yaqaano Paris F1 oo laga keeno dalka Turkiga sidoo kale variety kale loo yaqaano Chelsea oo asal laga keeno Asia asal sidoo kale laga keeno iyo mid kale asna Chinese oo asana oo dadka badan isticmaalaan oo la yaqaano sida common-ka inta hadda caasimadan la isticmaalo marka saddexdooda waxa faa'iido kala duwan leeyihiin mid marka wuxuu ku fiican yahay waxa noocyo hadda nooc gooni oo Soomaali gooni oo maaragtay oo liya noocan Soomaali askari lama jiro marka waan jeclaan insha Allah in la soo saaro
annagana waan ka shaqeynaa insha Allah. Masar Mahad waxaad noo sheegtaa cimilada oo inta badan ugu fiican ee uu ku baxo cimiladiisu waa nuucay cimilada qajaarka uu ku baxo hada wax ka dhaw xawaaye waa geedkan horta waa geed oo wide variety of climates ama environments oo kala duwan ku bixi kara oo kala duwan xawaaye isagoo ku xiran tahay geedka markaas fayraadka markaas isticmaalaysid temperature-ku u baahan yahay range markii la sheegayna waxa waaye waa 25 ilaa 30 degree inta u dhaxayso ama 3 ilaa 32 degree inta u dhaxayso degree Celsius intaas markaas optimumkiisu ah ka badan oo la qabsan karaa ka yarna oo la qabsan karaa waxa waaye waxay ku xiran tahay fayraadka markaas la isticmaalayo marka fayraadka ugu fiican oo markii cimiladanada loo fiiriyo ama wadankanaga loo fiiriyo waa kee fayraadka hadda oo la karo Soomaaliya hadda fayraadkaas waa ku fiican yahay oo saddex fayraad soo sheegay fayraadka kale Soomaaliya wadanka la keenay waa jiraan oo ayagana la tijaabiyay laakiin waa fail garoobeen maana saddex marka waxa soo qaata waxay tahay waa saddex komana saddexdoo marka cimilada Soomaaliya way la qabsan karaan laakiin waxa jira waxyaabo ay ku kala duwan yihiin jira oo lagu kala saarayo marka waxa laga yaabaa inuu geedka marka fayraadka marka la fiiriyo fayraadka wuxuu ku fiicnaanayaa sheegay life cycle-kiisa dheer oo xil dheer uu meesha jiraya ama fayraadka kale waxa laga yaabaa inuu ku fiicnaado sheegay oo inuu production-kiisa badan yahay laakiin life cycle-kiisa gaaban yahay marka mid kale waxa laga yaabaa inuu germination-kiisa kale inuu fiican yahay 100% yahay marka saddexan fayraad oo kale waxa waaye waxa dhigi kara cimilada Soomaaliya saddexdooda waa la qabsan karaan optimum way kaba soo qaad qajaarka oo asdii karaad waa u fiican yahay 100% qajaarkaas wadanka waa la qabsanaa waxa waaye oo cimilada hadii aan leeyahay kala duwan season kasta sanadka xilligiisa oo dhan qajaarka hadda jalsiga oo kale hadda qajaarka hadda noo beeran waa arkaysiin waaye marka wuxuu la qabsan karaa waxa waaye cimilada waa la qabsan karaa life cycle-kiisa oo kale aad waa fiican yahay production-kiisa waxa waaye waa ma sha Allah waaye marka recommendation ahaan waxa u bixinaa marka waxay tahay waa qajaarkan jalsiga hadda beerta ku beeran engineer waxaad noo sheegtay in ay saddexdan variety ay optimum ku yihiin Soomaaliya laakiin aad ku talinayso jalsiga marka waxaad noo sheegtaa cudurrada ku dhaca inta badan waa kuwe geedkan oo qajaarka ama cucumber-ka horta waa geed sensitive iska ah marka hore oo wuxuu u baahan yahay taxaddar aad u fara badan u baahan yahay markastana waxa la rabo waxay tahay waa hortaga wuxuu ka fiican yahay inaa marka inta cudur aragti aad daawaysid marka geedka cudurro badan ku dhaca iscaanyaan kala duwan ku dhaca fungi ku dhaco oo sidoo kale virusna waa jiraa ku dhacayo nadaafad darrada ka imaanayo oo san oo sabay loss aad weyn marka sida common-ka waxa ugu badan oo marba arkaysid waxa kamid ah marka insecticide-ka ugu horeeyo oo cudurkan leaf miner loo yaqaano ku arkay sidoo kale aphidis-ka oo kale aydan malabisada oo arkay iyo cudurro kale thrips waxyaabo yar ka arkay laakiinse 100% waxa la rabaa waxay tahay in geedka maaragtay oo prevention-ka loo sameeyo soo prevention isbedel cure alla wuxuu ka fiican tahay in la daaweeyo geedka marka cudurro far badan ku dhaco laakiin annaga waxa sameynaa waxay tahay technical isticmaalayo waxay tahay in laga hortago cudurkii oo aan la sugin intuu beerta ku dhacayo marka taas waa marka insha Allah faaraadyadana way ku xiran tahay waxa laga yaabaa faaraadka inuu soo isticmaalaysa marka iska fiiri cudurro adkeysan karo iyo cudurro soo adkeysan karin aydan noo sheegtaa maadaama cudurro ay ku dhacaan cudurradaas qaabka ugu fiican ee looga hortago maadaama waxaan u gudbin rabno dadkii aan ayagu waxaan aqoonta u lahayn laakiin rabay inay isticmaalaan ama adeegsadaan waxaad noo sheegtaa cudurradaas qaabka looga hortago ee ugu fiican cudurradaas oo hadda aan soo sheegay oo kala duwan oo cayaanada isku jiro qaabka ugu fiican horta loo hortagi karo waxay tahay waa ka horta meesha maarta filliga ama greenhouse-kii oo kale oo qajaarka baxay waxa uu muhiim tahay waa nadaafadda waaye waa in horta nadaafadda marka hore u wareyso qajaarka ku dadaashid sidoo kalena markii lagu dhahayo waa la ka hortagaa ma ahan in nadaafad bisay waxa waaye waa ina chemicals-kii asiin lahayd oo insecticides-ka asiin lahayd markuu geedkan ii sheegeen cudurka ku aragtid waa ina prevention aan u siisaa oo uga hortagtaa marka hore ku buufisaa marka waxa waaye markaan dhahay geedka laga hortago saas waaye waxa uu muhiimsan waxa waaye waa nadaafadda waaye marba dus geedka nadaafad haysan cudur meel ku jiro waa marka insha Allah sidoo kale waxa waaye waxa keeno cudurku waxa waaye oo ka hortag u baahan humidity waaye ama geedka ama huurka oo cariiri geedka iyadoo kale spacing-kiisa oo kale haduu cariiri yahay oo isku badan yahay markaas wuxuu helayaa cudurkii meel uu ku gambado oo keedu wuxuu helayaa harbur uu helayaa ku gambado marka in la ilaaliyo kale space-kaas oo kale la saxo oo meesha cariiri laga dhigin iyo nadaafadda in lagu daalo intaas ku talana